dowladda hoose ee South Africa ayaa waayahan dambe caqabad ku noqotay dadka ganacsatada Soomaaliyeed ah ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika iyadoo dowladda Koonfur Afrika ay waday olole looga hortagayo ganacsiga sharci darrada ah ee ka jira gudaha waddanka. Jawaari Cusmaan oo kamid ah dadkii ay saameynta ku yeelatay arrintaasi ayaa Home Cable TV ugu warbixisay sidii ay wax u dhaceen. sida wax u dhaceen waxa la kulmay saaka horta meesha dukaankeena u soo galeen gudaha markaas ayna su'aaleen waxa xaraadnina magac iyo aniga hata wax saas aniga magac waxa meheenin magac maxaa taqanan magacaadiga waxay leeyihiin Levi's iyo waxa raadina Springbok iyo waxa way sheegayaan laakiin oo kambanida dharka soo saaray macnaha oo South Africa marka waxay dhaheen waxba ka haysin markaas waxaan ku dhaana waxaas aniga ma gadan dheemi iibi waxaan Kenya ka keen aan iibi ahaan magaciisa samahay su'aal aad u ma akano oo magacay gooni aan aqoonin way iga qaadeen saas waxba ahaan 4 xab 5 xab amal ahaan laakiin dad qaar kood zaid dalnay zaid wax u qaadan laakiin wax saas aniga ma qaadan laakiin wax zaid wax u socdeen waa gartay waxa meesha laga qaatay ama dharkii ka qaateen marka qiimeysay oo aad total gareysay imise gaarisa waxaan ay qaaday wax saas ah 5 kun oo aad South Africa amal ahayd laakiin wax saas ay ma qaadan bini'aadamka qaar kood wax badan ay qaadaan 200 kun oo wax gaarisa amal ay qaadanayaan laakiin aniga alxamdulillah wax saas ay ma qaadan dawladda miyaa raali ka ah mise waa booliska kaliya oo socdo mise waxa idinka qaadanaya waa kambaniyashii dharkan lahaa kambaniyashii ma waxba booliis oo magac raadinayo South Africa magac wax saas والله Soomaalidu way la wadaagaan marka waxa weeye Soomaalidu waa la wadaagaan hadda ka horna waa la dhacay qayb kamid ah Soomaalida annagana waxa weeye maanta ayaa la dhacay marka waxa weeye tirada ugu badneed oo laga qaatay laakiin hadda waan dareemayo oo bilfal ka dhacday waxa weeye waa annaga marka kulay waa la ogaan doonaa waxay yiraahdeen maxkamadda hadii aad tageysana waa ka hadii aad tageyna taday ku taala marka waxa weeye annaga waxaan dantan lahayn waan gaarnay waan qaadnay waxaan qaadil rabnay marka waxa weeye rasiidisiyan ku yiriyo cadeyn warqadaha adiga qaaday alaabta adiga qaadeen marka waxay yiraahdeen waxaan ku siinayna ma jiraan warqad alaabta tiradeeda ay ku qoran tahay bay dhiibeen oo ay yiraahdeen magaca halka ku qor marka waayahan irana marka waxa weeye wax kale oo aan geystana ma jiraan ma faham oo ma sinta walaal si kastaba ha ahaatee ma ahan boobkii ugu horeeyay oo loo geysto dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Bialval hase ahaatee dadka Soomaalida ah waxa ay ka cabsi qabaan in dib ay u soo laabato Saris Abdikarim Mursal Farah Home Cable TV Cape Town.